wiil aragtida indhaha naafo ka abanahay markaasi indhahayga dalka gudihiisa waxba waa lagaga qaban kari waayay walaalnimadii wanaagu inay wadaku ahaato waxweeyaan aad u fiican weliba sii qurux badnaato codkaas aad maqasheen wuxuu horudhac u yahay warbixin aan ka diyaarinay maxamed siciid cali maxamed turki oo ku nool magaalada Burco waxaana warbixintaasi inoo soo diyaarshay misana soo jeedin doona qadar faarax bootaan ka bogasho wacan maxamed siciid cali oo ku magac dheer maxamed turki oo ah saxafi da'yar kuna nool magaalada Burco ayaa dhawaan laga baahiyay muuqaal lagu baahiyay baraha bulshadu ku xiriidho iyadoo sidoo kalena muuqaalkaasi laga baahiyay telefishinka madaxa bannaan ee Home Cable TV maxamed ayaa ku dalbanayay muuqaalkan in lagu caawiyo qarash uu u rabo indhihiisa oo dhakhaatiirta dalka gudihiisu sheegeen in 90% in loogu guuleysan karo in ay soo laabtaan haddii uu dalka dibadiisa aado muuqaalkan oo soo jiitay dad badan oo aan ka mid ahay ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Burco balse aan wax uga weydiiyo dareenkiisa iyo rajada hadda uu qabo inta ay leegtahay waaba haddii ay u hirgashay rajadiisuye ugu horeyna waxaan weydiiyay bal waxa uu qabsoomay iyo rajada uu qabo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبان وسلام يا دمان ومدى إسلام كامل كستي دافع عالم كتشوغان أدينا خضر فرح بوتان أدبان كو سلام يا ولال ولي وحرجة مقابل محاكو قراداي مادام وآنا حلين دقالي أن دلك دبجي سانكتيق لها waayay maxamed muuqaal baa laga baahiyay toddobaadyadii ina dhaafay gaar ahaan toddobaadkii ugu dambeeyay hadda ina dhaafay muuqaalkaasi oo aad ku dalbatay dhaqaalaha miyaanay la oran karin dhaqaalihii uu ku soo ururay mise wali waxba ka dhiman walaal aad baad mahadsan tahay runtii aad baan ugu mahadcelinayaa telefishinka caalamiga ee Home Cable TV oo barnaamijkaasi iga baahiyay walaal barnaamijkaasi la baahiyay weli wax dhaqaalaha iguma soo xiroonin waxaan kugu dhahdaa wax $100 ka yar ayaan markaasi aan helay oo markaasi soo xirootay intaasna aan ka mid baahiyadeedii ahayd in aan maxaan kugu dhahdaa aan dhakhtar aan helo isla markaas aragtidii soo noqdo maxamed ma waxa jira dhaqaale ku qoondaysan oo markaasi xadidan mise hadda wixii aad hesho ayaa doonaysa in dalka dibadiisa uga baxdo walaal horta runtii ma jiraan weli wax dhaqaale oo markaas anigu aan si caadi ah qoondeeyay balse laakiin dhakhaatiirta markii aan la tashaday waxay igu yiraahdeen maxaan kugu raadayay waxay noqon kartaa lacagtaasi dalka Turkiga doonayay inaan tago markaasi lacagta dhakhtarku kugu qalayay iyo tan maxaan kugu raadayay dalka aad ku tagaysaaba lacagta dalka lagu tagay aad bay kooban tahay laakiin waxaan kugu raadayay lacagta dhakhtarku qaadanayo waxay ku qiyaaseen adigu lacag $20,000 meelahaas markaasi intaas ayay ku qiyaaseen laakiin ma jiro wax aniga markaasi qorsheysan waayay lacagta carabka ku dhifatay ee ku soo xiratay iyo lacagta maaqulka ay tahay in lagu tago aad bay u kala duwan yihiin marka maxamed sideed wuxuu rajeynaysaa iminka qaab kale oo markaasi aad dhaqaale inta ka badan u hesho ma qaaday walaal may weli wax maxaan kugu dhahdaa aan qaaday ma jirto waayo maxaan kugu dhahdaa family-ga iyo maxaan kugu dhahdaa reerku ma awoodi karaan in ay lacagta inta leeg ay iga bixiyaan de markaasi ummadda islaamka ayaan ka dalbanayaa in maxaan kugu dhahdaa la dirtii ay caawiso maadaama meeshan ay adduunya ay tahay oo waxaad horumarsataa aakhira kaaga horeeyaan maxamed waxa tahay saxafi da'yar markaasi sida aan warkaaga ku hayo ilaa 2 sano ayaad saxaafadda ku dhex jirtaa ma jiraan wax caqabadaha xagga saxaafadda kala soo gudboonaaday gaar ahaan xagga indhahaaga runtii ma jiraan wax caqabadaha oo maaragtay saa u waaweyn oo igala soo gudboonaaday aan ahayn marka aan rabo inaan wax ka dhigarayo maadaama oo aanan dhaana waxba ka arkaynin balse laakiin waxaan aaminsanahay in dhalaanta maaha dhammaadka nolosha laakiin jabka waa nacabka nolosha waa halku dhig aan aaminsanahay markaasi lama odhan karo waxa qabado waaweyn way igala soo gudboonaadeen dhinaca saxaafadda aan ka ahayn xagga
waaye maxamed ma jira hadda t v aad ka howlgasho ama goob warbaahineed oo aad ka tirsan tahay walaal iminka ma jirto hore waxaan kusoo telefishinka caalamiga ee la yidhahdo bulsha t v oo aan daabixin jiray barnaamij la odhan jiray wax ka baro waayaha nolosha sidoo kale waxaan kasoo galay shabakad la yidhahdo Hot News iyana aan barnaamijyo badan aan kasoo din jiray balse iminka waxaan leeyahay kaliya YouTube channel aniga igu qaban waayahay shabakada aad ka soo howlgashay hal barnaamij ayaan ka daawaday oo runtii ahaa 10kii barnaamij ee Focus Pop-ka ee sanadka intaa ka socotay ugu daawashada badnaa isla markaana kaalmaha hore kaga jira su'aashaasi maxamed bulshadu si kale u fasirteen bal hadda adigoo soo koobaya jawaab sharaxan naga yar si su'aashaasi runtii su-aashaasi waxay ahayd su-aal aan in badan kasoo fikiray isla markaasna aan si habsamida aan uga shaqeeyey aanan rabay aan ku jirabo dadka bini'aadanka qalbigooda isla markaasna iyagu dhinac kale ay u turjumeen su-aashu waxay ahayd waxaad sheegtaa wax isagoo qalalan ku gala isagoo qoyana kaa soo baxa meeshuu kaa galay kaa soo baxa jawaabta su-aashaasi oo kooban waxay ahayd cadayga waayahay jawaabta su-aashaasi maxaa feedback kaga soo noqday oo xagga warbaahinta maadaama dhanka warbaahinta marka la eego ay u tirinayeen su'aalo aanay macquul ahayn in shacabka la horgeeyo runtii aniga waxtaa u weynayay ma soo noqonin social media wanaagii oo waa maaragtay waxyaalo badan bay dadku ay marba ay ka bixinayeen commentiyadooda waanan wada akhristay qalab aan markaasi isticmaalaanan ku akhristay balse laakiin anigu waxay soo handaliyay mooyaane maan arag wax ay dhalaylay maxamed ugu dambeynta barnaamijka ayaan daaganahay maxaad ka dalbanaysaa shacabka muslimiintaana waxaan ka dalbanayaa dhammaan ummadda muslimiinta in ay maxaa kugu dhahdaa iyaguna ay naxariistaan oo ay markaasi dhaqaalahaasi ay iga soo caawiyaan aad baad u mahadsantahay maxamed insha allah walaal adigana ayaa mudan sida hadalkiisa ka cad weli maxamed uma suuragelin rajadiisii ahayd inuu qarash helo dalka dibadiisa oo ku tago maadaama aan weli soo gaarin qarashkii uu baahnaa waa saxafi isaga oo laxaadkii ugu muhiimsanaa la haddana u taagan inuu bulshadiisa u adeego haddaba walaal maanta garab iyo inuu ka baahan yahay walaalkeen maxamed ee aan garab istaagno kuna caawino wixii gacanteena ku jira